kusoo dhawo Fan Academy taawo calaamada subscribe-ka kadibna furo gambaleelka taana waxay ku saaraysaa cashar kastoo aynu soo dhigno inuu ku soo dhaco isla waqtiga aynu soo dhigno waad mahadsantahay Assalamu alaikum. My name is Ahmed. In this lesson, I'm going to teach you how to say the year in English. Kusoo dhawo Fan Academy. Darsigan waxaad ku baran doontaa sida loo sheego sanadka adigoo adeegsanayo luuqadda Englishka. Dhamaadka darsigan waxaad si buuxda awood ugu yeelan doontaa hadduu Alle idmo in sanad kasta oo Ingiriis ah aad akhrin kartid. Sida awgeed inala daawo fiidiyogan. Years are normally divided into two parts, the first two digits and the last two digits. Years are normally divided. Sanadaha waxaa loo kala qaybiyaa two parts laba qaybood. The first two digits labada god ee ugu horeeyo and the last two digits iyo labada god ee ugu dambeeyo. 1984 is divided into 19 and 84. So you would say 1984. Sanada 1984 waxaa loo kala qaybiyaa sidan 19 iyo 84. So you would say waxaad leedahay 1984. Waxaa qalad ah inaad u xisaabisid sida xisaabta caadiga ah tiraadid 1984. 1984 looma aqriyo English sidaas marka laga hadlayo sanadka. Waxaa loo kala qaybiyaa sida awgeed laba qaybood. Labada raqam ee ugu horeeyo iyo labada raqam ee ugu dambeeyo si kala gooni ah ayaa loo aqriyaa. 1984. Tusaalooyin kale 10 66 10 66 16 52 19 41 20 18. Sidaas ayaa loo aqriyaa sanadka Englishka. U kala qaybso 2 iyo 2. How to say the years after 2000. For the year 2000, you say the year 2000. Sida loo sheego ama loo yiraahdo the years sanadaha after ka dambeeyo 2000 2000. For the year 2000 sanadka 2000 you say waxaa leedahay the year 2000 sanadii 2000. For the years 2001 to 2010, the most common way of saying the year is 2000 and plus number. Sanadaha 2001 ilaa 2010 habka ugu caamsan ee loo sheego waxa weeyaan the year is 2000 and plus number. In la sheego 2000 la yiraahdo marka hore kadibna la raaciyo tiro. Tusaale 2001 2001 marka waxaa leeyahay 2000 kadibna waxaan raacinayna 1 2 3 4 5 waka 2005 2008. For the first years after 2010, sanadaha ugu horeeyo ee ka dambeeyo 2010, you may hear two different alternatives. Waxaa laga yaabaa inaad maqashay dadka ugu dhawaaqayo laba qaab oo kala duwan laakiin alternative ah isku dhigmo. Tusaale 2012. Some people say 2012. Dadka qaarkood waxay yiraahdaan 2012.
while halka others say kuwa kalena ay yiraahdaan 2012. Marka haddii qofku yiraahdo 2012 ama 2012 waa wax isku dhigmo aan kala duwanayn. They are both used and both correct. Labadaba waa la isticmaalaa, labadana waa sax. Years from the first decade of each century. Years, sanadaha, from the first decade ee 10 sano ee ugu horeeya of each century ee qarni kasta. Decade waa 10 sano, century-na waa qarni. Marka 10 sano ee ugu horeeyo qarni kasta. When a year ends in number between 01 and 09, for example, markuu sanadka ku dhammaado tiro ah ama tiro u dhaxayso eber 1 iyo eber 9, tusaale ahaan sidan oo kale. Inta u dhaxayso eber 1 ilaa iyo eber 9. Then the last part is pronounced as the name of the letter O. Qaybta ugu dambeyso waxaa loogu dhawaaqaa sida magaca xarafka O plus number oo la raaciyay tiro. Tusaale 1508, 1508, 1709, 1901. When a year ends in 00, e.g. tusaale, haddii sanadku ku dhammaado eber eber, sida sanadan oo kale, then the year is said as the digits before 00 and then 100. Haddii sanadku uu ku dhammaado eber eber, tusaale sidan oo kale, sanadan oo kale, the year is said as the digits before 00 and then 100. Sanadka waxaa loo sheegaa xarfaha ka horeeyo eber eberta in la akhriyo kadibna la raaciyo 100. Tusaale 13. waxaa la akhriyaa marka hore xarfaha ka horeeyo eber eberta kadib waxaa leeyahay 100. 13, 100. 17, 100. 18, 100. When people refer to the entire century, dadka markay u tiirinayaan qarnigo idil eenan ku daraynin tirooyinka raacsan, and s is added to the end. S ayaa lagu daraa dhammaadka. Tusaale, markaynu ka hadlayno qarnigan oo kale, qarnigii 15aad, waxaynu leenahay the 1500s. qarnigii 18aad oo kale, waxaan leenahay the 1800s. Of course, you can also say the 16th century, qarnigii 16aad, and 19th century, qarnigii 19aad. Qaybta dambe oo ah 16th century, qaabkaas ayaa loo soo gaabsadaa. Waxaad dhihi kartaa 17th century, the 18th century, qarnigii 18aad, noocaas insha Allah loo isticmaalo. kusoo dhawo Fan Academy, taawo calaamada subscribe-ka kadibna furo gambaleelka. Taana waxay ku saaraysaa cashar kastoo aynu soo dhigno inuu kuu soo dhaco isla waqtiga aynu soo dhigno.
waad mahadsan tahay